madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole iyo wafdi hogaaminayo ayaa galabta ka soo degay magaalada Garowe caasimadda dowladda Puntland halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo xubno kamid ah baarlamaanka Puntland iyo waliba xubno ka socda golaha wasiirada dowladda Puntland iyo dadweynaha aad u tiro badan. wafdiga madaxweynaha ayaa xilligii la soo gaarsiiyay xarunta madaxtooyada magaalada Garowe caasimadda dowladda Puntland halkaas khudbad ugu jeediyay dadkii iyagu soo dhaweeyay madaxdaasi. madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland General Cabdisamed Cali Shire ayaa markii ugu horeysay goobtaasi ka hadlay waxaana uu sheegay inuu si weyn ugu soo dhaweynayo madaxda Puntland oo muddo dalka dibadiisa ku maqnaa oo ka mid yahay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole waxaanu sheegay in intii ay ka maqnaayeen dalka ay howlo badan qabteen isla markaana ay ka mid yihiin ciidamada ammaanka howlgallo ay sameeyeen kuwaas oo ahayeen kuwa ay ku qabqabanayeen burcadbadeed iyagu soo gashay deegaanada Puntland. madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa isagu halkaasi warbixin ka jeediyay isla markaana uga warbixiyay safarka uu ku maqnaa dalka dibadiisa kaas oo uu ku sheegay inuu halkaasi ay ka soo galana shir ka dhacay wadankaasi Turkiga waxaana uu sheegay in halkaasi khudbadii ballaarneed uu ka jeediyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya halka khudbada kalena ay ka jeedisay dowladda Puntland isla markaana uu jeediyay wasiirka maaliyadda ee dowladda Puntland. ayaa sidoo kale ka hadlay dagaaladii dhawaan ka dhacay deegaamada gobolka Cayn halkaas oo uu sheegay in ay iyagu sameeyeen dad iyagu sheeganaya inay yihiin jabhad isla markaana doonaya inay dib u soo ceshaan magaalada Laascaan ee xarunta gobolka Sool oo haatan ka taliyo maamulka Somaliland. wuxuuna sheegay amuurtaasi in dowladda Puntland aysan marna yeeleen in jabhad uga suqaysa soo celinta magaalada Laascaan oo ay samayso isla markaana aysan ogolaan doonin oo ay dowladda Puntland qaab kasta ku soo celisay iyadu soo celin doonto. madaxweynaha ayaa sidoo kale jabhadaasi ku tilmaamay mid dana gaar ah isla markaana uu sheegay in ay doonayso in ay howlo siyaasadeed halkaasi ka fusho werwer iyo buuhood kama mara arrimo siyaasadeed rag baa waxay doonayaan meesha inay fidma ka dhigaan oo innaga weliba meelkay laga doono xaqiiqda markaan ka hadal isla ognahay in afka laga dhowro maaha annaga xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan iyo shacbi ahaan jabhad intay garab qaafto xukuumaddii iyo dadkii iyadoo rabshad dhigta oo waxaan ayan gaari karin ka shaqaysa horena waa u diidin haddana moogin siyaasad ahaan iyo waxtar ahaan midna moogin waa sharci daro go-aanna golaha wasaaradda waa ka gaaray golaha baarlamaankana waa loo gudbinaya nimanka lawarka isim ah iyo niman siyaasiyiin oo daba taagan oo Soomaaliya madax ka ahaan jiray kuwa kale oo iyana Soomaaliya iyo Puntland madax ka ahaan jiray wax ka buufinaya in deganaansho meeshaan ka dhaco la'aan waxaan oran karnaa waxa weeye kuwii lagu magac daray Cali Geeri Baayo wax waa hore ay ka tageen doondoonay oo ay natiijo ka gaareen waxa fidmaahay wixii meesha ka dhacay iyaga ka mas'uul provocationka iyo ciddii markaa kala ficil qaadatay oo ah maamulka Soomaaliya la jira marmarsiyan laga dhiganayaa si xoolo loogu urursado ama baawar laga doono Laascaan xoreynay Laascaano in laga kaco xil dowladda saaran weeyay oo ay ka kacaan maamulka dadjooga dhinac kasta ha u mareen mar walbana kama sheegi karo tafaasiisheeda meeliyada mana hay laga sheego halkaas aan u kala seexanay annaga iyo odayaasha dhaqanka qoraal baan u kala seexanay qolaba doorkeeda inay yeelato cid noo dhaxayn karta ma jiri karto cid siyaasiyan inay ka faa'iideyso doonayso oo soo dhac gasho ama dhowrkiisoo raashin ha soo ururiyeen ama xoogaa shilimaad ha soo direen ama jiri meelaha intay ka soo ururiyeen ha yidhaahdeen anaga wax ka qabanayna haddii ilaahay waxaana fiican in siyaasadda dowladda ay dadku ku kalsoonaadaan hoggaansanaan dadka dibadda oo caadifadooda laga faa'iidaysanayona inay ogaadaan baa fiican madaxweynaha